بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج حفلات كان عاوة وحنقول تلقلني dadka qaxootiga ah ee Soomaalida iyo Yamanta isugu jira ee ka yimid dalka Yaman colaadaha ka dhaceen ee soo gaaray deegaanada Puntland dadkaas oo ilaa ay bishii afraad ee sanadkan ku soo qulqulay deegaanada Puntland ilaa iyo 10,000 dad gaaraya ay qaabishay dawladda Puntland dadkaas ayaan ugu talagalnay xafladan oo munaasabada Ciidul Fitriga ah barnaamijkana waxa soo abaabulay dawladda Puntland guddiga xirada maamulka xirada qaxootiga iyo waliba taas hay'adda tadaamun iyo qaar kale oo badan iyo hay'adaha samafalka ma yara gurmadka loo fidiyay dadkan oo ay u fidiyeen shacabka Puntland dawladda Puntland culamaa diinka iyo guddiga wuxuu ahaa mid juhdi badan lagu bixiyay haddaba barnaamijkan caawa waxaa diyaar u ah koox la magac baxday Somyam Somali Yemen waxaa loo soo gaabiyay Somyam waxay soo bandhigi doontaa barnaamij faneed yar oo majaajilo ah oo ka turjumaya dadka qaxootiga ah ee soo gaaray deegaanada Puntland waxyaabihii loo qabtay iyo markii ay soo galeen waxyaabihii ay la kulmeen barnaamijka waxaa inoo jooga marti fara badan oo ka mid ah qaar hay'adaha ka mid ah maamulka dawladda maamulka gobolka kan degmada iyo waliba guddiga xirada iyo waliba maamulka xirada oo diyaar ah hayeeshee inta aynan barnaamijkaas gudagelin aan ku furano aayadaha quraanka ah nabadoonbaana ayaa inoogu furay بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم waxaa kale oo goobta jooga ganacsatada oo ay ugu horeyso shirkadda Goolis ee gayigeena waa dareemaysaan waxyaabaha ay ka qabatay una qabatay dadka qaxootiga ah kooxdan dhabarkayga taagan waa kooxda Ubax Band ee magaalada Boosaaso oo iyada lafteeda caawa ugu tala gashay inay barnaamijka soo bandhigto inta aynaan u gudbin barnaamijka iyo xafladan aan ugu talagalnay iyo majaajilada aan ugu talagalnay bal marka hore si xafladan loogu furo waxaan ku soo dhaweynayaa maamulka xirada Umar Ismaan Saeed. Welcome Mr. Umar. بسم الله الرحمن الرحيم. مركوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركحي عيد ونكسن. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. سيدا وشيء حريريها برنامجكم. برنامج كان وحاسوا أبابلي دولة بوتلاند وحنا الإمام الكحرة وحنا اللوجو ترجلي سودوينتي ضد كرير قاعدتي اليمن لسودويي قلادي هوري وحنا قبلنا سبورتسي عيارو قلادان ما داوي لكل من بشي بركيسنيد وحنا وجو ترجلي إن حفلتهم استعجال كبلشاه قيمها بدن أردو سودوينو waxaa xusid mudan oo sharaf weyna inuu xafladan caawa ka soo qayb galeen agaasimihii waaxda qaxootiyada wasaaradda arrimaha gudaha mudane Burhaan ku-xigeenka duqa magaalada Dr. Qaasim hay'adda tadaamun oo ah maalgeliyaha barnaamijkan ama taas u taqaanin shirkadda ballaaran ee Golis Telecom guddigii gurmadka qaxootiga Yemen oo ilaa iyo markii barnaamijka la bilaabay halganka ugu jiray oo nabadoon baanaya nabadoon caraale ay matalayaan waxaa xusid mudan ee amaantooda mudan ciidanka amniga oo la joogo taliyaha xarunta ciidankiisii waxaana la joogo shirkadihii Obig iyo saxaafadii kala duwaneyd fanaaniintii dhammaantiin waa salaamayna sida ogtiin caawa waxaan rabnaa in la soo bandhigo dareenka dadkii la soo dhaweeyay wasmaqlayna waxaan caawa doonaynaa in aad soo bandhigtaan dareenkiina annagu haddaanu nahay dawladda Puntland shacabka reer Puntland
iyo hay-adaha samafalka oo kuwaan magacaabay ugu horeeyaan waxaa lagu ballamay siyaasaddii dowladda Puntland madaxweynuhu hogaaminayay in dadka reer Yemen lagu soo dhaweeyo gacmo dufan leh sida la socotaan ilaa iyo 6 bishii Abriil oo qaxootigu soo qulqulayay 24 kun iyo samd iyo dheeraad agaasimaha tirakoobka haya baa dalka soo gaaray xeradan tiro 20 ku dhow baa soo gaadhay 20 kun waxay kaga bixeen xerada iyagoo faraxsan waxaana la gaarsiiyay goobihii ay awal ka soo barakaceen dadka ajnabiga oo Yemeniyiinta iyo Itoobiyaanka iyo dhulka kalena iyagana waxa loo soo dhaweeyay dib u dejin wanaagsan baa loo sameeyay dhul baa la dejiyay siyaasad wanaagsan baa lagu soo dhaweeyay siyaasadda Puntland waa martigelin anigoo ku hadlay magaca maamulka xerada waxaan doonaynaa inaan nala wadaagtaan caawa ra'yigiina soo dhaweyntiina farxadiina hal maan hadal kuma jiro ilaa saakay waxa halka nala joogay oo buskudkii xalwada nala qiiminaysay hay'adda SAFE oo si gaar ah u bartilmaameedsata dadka nugul oo caruurta ugu horeyso waadeer in muuqata halaha xafladatan waxaan ku cadaynaynaa sida aad la socotaan xeradan waxay ka amaanan tahay oo bila sharaf ka haysta dawladda Puntland madaxdeeda sare iyo madaxda wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka iyo dawladaha carbeed iyo kuwa caalamkaba waxaana sharafta dhaliyay bulshada isku xiran oo ah dawlad iyo shacab iyo hay'ado waxaa xusid mudan dadweynaha halkaa ku jira iyo shacabka reer Boosaasood xagga nolosha caawa waxaa sareeya oo aad looga fakiray oo saacad walba laga warhayaa kuwa xerada ku jira waana siyaasadda dawladda oo madaxweynuhu hogaaminayo waxaan ammaanayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa war la hel yaaba tala la hel qolada saxaafadda oo ilaa iyo maalintii arrintaas u balaabatay na garab taagnaa warka iyaga tabinayay oo hadda ay ku dhayihiin inta badan saxaafadda Puntland ka shaqeysa iyagana si gaar ah u amaanaynaa xafladdu waa dheedahay waxa ku jira dadweynihii kala duwanaa ee lahaa jinsiyadaha kala duwan oo dareenkooda soo bandhigi doona afkooda ku hadli doona wixii loo qabtay annagu ma doonayno inaan isfaanino internet annagu iskuma qorine dadweynaha la soo dhaweeyay ka timi ammaantaasi iyagana waxaan jecelahay caawa in halka soo istaagaan iyagoo Soomaaliya Yemeniyiina jinsiyada kala duwan ay ku hadlaanin sidii loo soo dhaweeyay min deked min xerada min saagootin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay soo dhawaada waxaan jecelahay inaanu idinla wadaagno aniga markaan iska hadlo maantay saakay qorshaygu waxa inaan safar u baxo ciyaalkayga la soo ciido laakiin maadaama aan maamulkahay waxaan go'aansaday inaan la ciido caruurta iyo dadkan xerada qaxootiga ku jira madaxdii baa iga dambaysa ruwaayado kala duwan waa samayn doonaa dareenka lagu muujinayo hadda barnaamijka waxaa inoo xiriirinaya madar waxaanu jecelahay inuu bartiisa nooga sii wado kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maamulka xarunta Cumar Ismaan Saciid waxaa jooga mas'uuliyiin aad u fara badan oo ugu talagalay in ay ka qayb qaataan munaasabadan loogu talagalay dadka qaxootiga ah ee ka yimi dalka Yemen barnaamijkan waxa ugu talagalnay in aan hilmaansiino dhibaatooyinka ay soo mareen in aan hilmaansiino rabshadihii iyo dagaaladii ay ka yimaadeen in aan u muujino in ay u yimaadeen walaalahood in aan u muujino in ay joogaan dhulkooda haddii ay yihiin Yemeniyiin iyo haddii ay yihiin Soomaali intaba markan waxaan u yeerayaa Sheekh Ibrahim oo ka socda taaska hay'adda tadaamun oo iyadu lafteeda ka mid ah dadka wax walba u qabta dadkan qaxootiga Yemen kaliya tafadal بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير. waxaa maanta aad i caawa farxad weyn inoo ah anigoo ku hadlaya magaca hay'adda tadaamun inaan ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan oo ay soo agaasintay dowladda Puntland oo ay nagala joogaan mas'uuliyiinta dowladda agaasimaha guud ee waaxda qaxootiyada arrimaha gudaha qaybta waaxda qaxootiyada ku-xigeenka duqa magaalada Dr. قاسم مسؤولين شركتها جوليس iyo OPEC hay'adaha kale ee jooga BSF dhamaan qaxootiyada ka soo qayb galay dadka qaxootiga ka yimid walaalaha Yemen ka yimid oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin dhamaan aad baan ugu faraxsanahay xafladan imaano hay'adda tadaamun saa la socotaan waa hay'ad wadaniya oo xarunteeda weyn ay ku taala Boosaaso waxay u taagnayd caawinta dadkan soo qaxay ee Yemen ka soo qaxay habeen iyo maalin tan iyo markii ay bilaabatay imaanshaha qaxootiga uu bilaabmay waxay ahayd hay'adii ugu horeysay ee cunno gargaara keenta xaruntan waxayna ahayd tii ugu dambeysay cunno keenta shalay oo ugu dambeysay iyo saako ciidda ahayd had iyo goorna waxaan u taaganahay sidii dadka walaalaha wixii aan qaban karno aan ula qabanno annagoo kaashanayna dowladda mas'uuliyiinteeda iyo hay'adaha kale ma doonayo hadalkeena badiyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladda tan caawa ciidda ku saabsan soo dhaweynta walaalaha ka yimid Yemen inaan ka soo qayb galno waxaan ku soo gabagabeynay hadalkayga ciid wanaagsan ku soo dhawaada maxay ahaydeen dhulkiina joogtaan innagana waxaan diyaar u nahay had iyo goor wixii aan qaban karnaa inaan idinla qabanno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Sheekh Ibrahim taas fari kama qodna barnaamijkan idinkugu talagalnay caawa waxaa jooga mas'uuliyiin fara badan oo ka socda degmada iyo shirkadaha gaar ahaan shirkadda Golis waxaan meesha ka maqnayn BSA oo iyadoo ah midda qoodisaba dadkan oo dhinaca raashinka oo kaamka u haysta BSA waxay ka mid tahay dadka juhdiga badan ku bixiyay hagaag thank you hayeeshee khudbadaha wax yar aan u kaadino aan ku yaranasano kooxda Somyam caawa waxay kugu tala gashay majaajilooyin fara badan oo ka turjumaya dadka qaxootiga waan u yeeray markaan Somyam aan sacabka siina Somyam الله إلى دونتي وين السوا ودتك ولا راح السوا وهالك كسوا دونتي أنا هالك كسوا دونتي برافيريو دونتي عاوي الله إلى إمام وقته وين السوا ولا راح وهالك كسوا دونتي عاوي نوطوس دتكي مايسا وسوينا نبض عبد الله وانا دونتي ما فينا 6 ساعات ما تاغنا وسوينا 6 ساعات ما هلك تاغنا وانا وصبرنا 8 ساعات حتى way taagnaan anigu xaradii baan ka imid qaxootiga lagu soo dhaweynaynay wax kasta waa diyaar caafimaadkii waa diyaar raashinkii waa diyaar dadkii soo dhaweyn lahaa waa diyaar gurmadkii degdeg ah kulli u diyaar way iyagaan sugayna wax yar ka bacdi insha Allah إن شاء الله تعالى وسوينا وراهيو دونتي ما فيرينا دونتي ما سوينا ودتكي ما يسان نبضون دتكي ما يسان وسوينا وحيان هينا وقلت لنا وحبا كاكرن ماينو
ayagaa u taagnaan anugu haddeer kaamkii baan ka imid caafimaadkii waa u diyaar raashinkii waa u diyaar gogoshii waa u diyaar jiifkii waa u diyaar kulli waa u diyaar wax ka dhiman ma jiraan inta waxaa dhabarka u ridatay dowladda Puntland oo umma Soomaaliya dhabarka u ridatay dowladda Puntland oo u dhabar adeegaysa shacabka ka soo qaxaya dalkeena labaad ee Yemen waan diyaar baan insha Allah waan soo dhaweynaynaa عمل دونتي وتا واكو فريستا شنو هذا فريستا كل شيء جاهز بنودي كام كل شيء جاهز والمصطفى جاهز والراشم جاهز وهذه حق النوم جاهز ان شاء الله كل شيء جاهز بنودي هذه عند الكام القحوطي بنودي ان شاء الله سودو هذا وحبايبي كاغرن ماينو دخلا لو خيرن الا مدحوينها الا عنقه اسكولka هذا waxa diyaar baydinahay waa soo dhaweynaa waxbaaydii ka hadlan mayno labada ninna waa walaalkeen isku hooyo isku aabaanahay ninkana isku aabaanahay ninkana isku hooyo isku aabaanahay labadoodaba waa inaan si siman u soo dhaweyno waa inaan soo dhaweyno haddana meesha ay ku nasan lahaayeen baa gelinaa waanu yeelay Yemen waa dalkeeni labaad hadeer waa u sheegay ana la hadlay Yemen waa dalkeeni labaad inay ku soo dhawaadaan dalkeena Puntland waa dalkoodii labaad mid maanta horeysa ma inay washada waa inagii noo soo dhaweey dadkeena mid aan ku qasbanahay weeye gaar ahaan waliba dowlad goboleedka Puntland oo dhabar adeegaysa oo dhabarka u ridanaysa hadday 100 kun gaaraan hadday 30 kun gaaraan hadday 22 kun baan ka baxay hadday Puntland nahay marka oo dhabar adeegayna insha Allah waxaan ka sheegaynaa maamul goboleedka ugu horeeyay oo qaxooti soo dhaweeyay Afrika inuu yahay maamul goboleedka Puntland hagaag majaajilada iyo kuwa kale fara badanba way idin dhiman yihiin oo kooxda Somyam ay ugu tala gashay hayeeshee waxaa fadhiya mas'uuliyiintii dawladda iyo maamulkii degmada iyo shirkadihii laakiin markaan aan u yeero shirkadda Golis oo iyada lafteedu u dhabar adeegtay wax u qabashada waxa u maleynaya inta meesha fadhiisa qof aan sim card wadan ma laha oo dadka wax ka qaada markaan aan u yeero Caata Cabdisalaan oo shirkadda Golis ah مسؤولينta dawladda maamulka xerada culumada nabadoonada ururada hay'adda tadaamun BSA hay'adaha iyo ganacsatada kala barnaamijkan ka soo qayb gashay iyo ka soo qayb galayaasha dadka walaalaheena Yemen ka yimi oo dalkooda ku soo noqday dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan leenahay ciid wanaagsan inta kadib sharaf weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabada noocan oo kala runtii waana farxad gelinaysaa oo waxay nagu soo abuuraysaa galgacaylkii hore iyo mid ka ballaaran haddaan nahay shirkadda Golis ahmiyad gaar ah noo leedahay barnaamijkaani waxaanu nahay ama isku naqaanaa shirkadda ummadda oo runtii waa shirkad ummadda ka timi oo ummaddu leedahay waxa ay heshana ummadda ku celisa shirkaddu waa shirkaddii ugu horeysay oo barnaamijkan
markay dowladda Puntland soo bandhigtay shirkadda ugu horeysay oo ka qayb qaadata oo mas'uuliyaddeeda qaadata weeye shirkaddu siyaabo badan bay barnaamijkan uga qayb qaadatay hadday ahaan lahayd dagaamaynta iyo ku celinta dadka walaalaheena ee soo qaxay deegaankoodii hadday ahaan lahayd inay shirkaddu isla markiiba ka jawaabto in qofku xiriir uu helo oo dadkii eheliyadiisii caaladihii iyo bulshadii uu ka yimi iyo dadkii uu ka soo qaxay iyo dadkiisii inuu xiriir toosa la helo hadday ahaan lahayd dad si gaara u dhibaataysan oo shirkaddu si khaas iyadu uga qayb qaadatay hadday ahaan lahayd quudintooda iyo hadday ahaan lahayd diridooda iyo celidoodaba intii aan barnaamijkan bilaabmay oo dadka walaalaheena dalka Yemen dhibaatadu ka dhacday shirkaddu waxay qaaday dal dhowr boqol kor u dhaafaya iyadoo ah shirkaddu ugu horeysay oo sunnahan in lagu daydaa iyadu jidaysay waxaanu bixinnay 2500 oo simkaar oo ay ku jiraan lacag si qofku eheliyadiisii iyo dadkiisii xataa uu u wacdo xiriir u helo waxay shirkaddu diyaar u tahay inay ka qayb qaadato intaa in ka ballaaran waxaanu ballan qaadaynaa inta hawshaani socoto horta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaasi dalkii nabad ka dhigo dhibaatadana alla ka saaro inta haddii ay sii socotana waxaanu diyaar u nahay inaanu noqonno kuwa ugu badan ee mas'uuliyadda qaata u dhabar adeega waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dowladda Puntland oo mas'uuliyad aad iyo aad u ballaaran iska xilsaadhay barnaamijkan shirkad waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa culimada gobolka Puntland iyo shirkadaha iyo hay'adaha dhammaantood mas'uuliyadda gaarka ay saareen iyadoo aysan jirin cid kale oo mas'uuliyadda qaadatay deegaanka Soomaaliyeed ama cid kale oo maaragtay iyadoo u istaagtay inay hawsha wax ka qabato aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dadkii barnaamijkan soo qabanqaabiyay maamulka xerada fanaaniinta iyo nabadoonnadii barnaamijkan ka shaqeeyay salaanta islaamka ku salaamaya ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad ayuu u mahadsan yahay shirkadda boolis markan aan idin xasuusiyo astaanta calankeenna waa Soomaaliya toosan waxay noo qaadaya dhallaankeena yaryara ciyaalkeena yaryara Soomaaliya toosan soo isku tiirsadahay hadbakiina taagdaranay taageera weligiinay idinkaysu tooqayo idinkaysu taamaye Soomaaliya toosan isku tiirsadahay hadbakiina taagdaranay taageera weligiinay Butan kuyo Dila tirinaysa Dehda kaga sitale Alayo kilma wa'amba Midabka butan kuyo Dila tirinaysa Dehda kaga sitale Somali hanolad aad ayaa mahadsantiin aabasid Soomaaliya han noolaato waxaan u maleynayaa dad badan inay qiiroodeen oo heestaasi daawanayeen waxaa jira hay'ado fara badan oo halkan wax ka qabtay oo dadkan u dhabar adeegay juhdi badanna ku bixiyay sanadka bixintooda fadlan aan isdhegaysanno faastowan hala aamuso fadlan hala aamuso ciyaalka hala fariisiyo fadlan aamusa وهاجي مركب وحلو يريا هيئة Save the Children أحمد ألمس أو هل كان يجوا أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب وحن سلام يا دمان كسوق الجلياش حفلة دان ورنتي سيجارة محمد ده درني ويلا. marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan maamulka xeradan
iyo dhammaan xubnaha kala duwan ka shaqeeya kan ama xeradan iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan iyo cid kasta oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay xafladani suuro gasho waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda guddiga nabadoonnada iyo maamulka ama guddiga sida gaarka gacanta ugu haya culayskan faraha badan ama maxaan ku dhahay runtii markaan aan aragno juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan waxaan rabaa si gaara inaan mahad ugu celino dhammaantood dadkaasi runtii waxay Soomaalidu tiraahdaa halman hadal kuma jiro maanan u soo diyaar garoobin inaan halkan ka hadlo laakiin waqtiga oo yar dartiis waxaan go'aansaday inaan laba kelmadood ka soo jeediyo sidaad ka warhaysaan waddankeena Soomaaliyeed waxaa ku dhacay burbur fara badan dadkiina dhammaan waxaa ku dhacay burbur kala duwan burburkaasi wuxuu saameeyay dhammaan qaababkii kala duwanaa ee bulshadu u noolaan lahayd sidaad ka warhaysaan dadkeena Soomaaliyeed burburku markuu saameeyay waxay u yaacaan wadamo kala duwan wadamadii kala duwan markay u yaacaan waddanka Yemen oo darisna la burbur ka dhacay the same haddana waxaan dhacday in dadkii Soomaaliyeed halka qaxootiga ku ahaa inay dib ugu soo laabtaan dalkeena waxaan rabaa maanta inaan u sheego dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa walaalaheena Yemen ka yimid halkan jooga in aysan ahayn qaxooti inay ku soo laabteen dalkoodii inay joogaan dadkoodii inay wax kasta u baahan yihiin oo awoodeeda ka reer Puntland ahaan ka Soomaali ahaan ka hay'ad ahaan ka dawlad ahaan aan awoodi karno inaan mar walba la garab taaganahay hay'adda Save the Children waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan caawa horteeda ku arkayo ciyaal yaryar oo aad u qurux badan oo runtii shucuub gaar ah iyo dareen gaar ah igu yeeshay markaan halkan soo istaagay sidaad ka wada arkaysaan wajigayga Save the Children sidaad magaceeda ka dareemaysaan waxay inta badan xoogga saartaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda carruurta oo ay ugu horeyso awalan maxaan ku dhahay waxyaabaha tacadiga ilmaha la kulmi kara Save the Children waxay ka qayb qaadatay caawimaadii loo geynayay maxaan ku dhahay caawimaadii loo geynayay ama caawimaadii la siinayay dadkan intay centerka ku jireen 666 qof ba waxa la siiyay caafimaad dadkaas qayb ka mid ah waxa lagu sameeyay qaliimo kala duwan hooyooyin uur leh oo ku dhali waayay maxaan ku dhahay sida caadiga u dhali waayay waxa loo sameeyay operation kala duwan 666 qof ba waxa loogu sameeyay caafimaad kala duwan the same sidoo kale waxay ka qayb qaadanaysaa operationka centerka ka jira iyo waxyaabaha kale oo maxaan ku dhahay sida safarka dadka la siinayo kale markastana waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo aniga ku hadlayo magaca the Save the Children inaan wixii awoodeeda ah ama wixii tabarteeda aan la garab taaganahay dhammaan maamulka iyo maxaan ku dhahay dawladda Puntland iyo walaalahay ku jira xarunta aad iyo aad buu mahadsantiin hadalka waan dheereeyay waan idin salaamayaa waxaan leeyahay Eid Mubarak mahadsan yahay almis oo Save the Children fari kama qodna مسؤولين فربنا أيها هالكم فلسة لكن وحاول يريا أقاسم برهان هروس حاشي أقاسم تفضل بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين دمان مسؤولين الدولة ده فرد حفلة هيا لها صوفنك وعاود فرصة وهي لقينا كسوق بجلال حفلة كوهرة اتجاه بري وعاوة حفلة التنايب ومد غيبت وقولهم سنتقى علينا ومحبان قحوتيga Soomaalida ee dib ugu soo noqday dalkoodii qaxootiga Yemeniyiinta ee ka soo haajiray dalkooda ee Puntland maganta oo ah dadka ka fadhiya in loo gudbiyo Yemen ka yimid oo u dhashay dal saddexaad oo rabo dalkooda in loo gudbiyo dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد جعلهاي وحفلة وليال بضلنا هدي لي كورو هاي واحد ربان عاوة وكوهلي إن عن جانسينه وعن جعله إن عن صوكوبه لبدي أبريل
ayay qaxootiga ugu horreeyey Puntland soo gaareen iminka bishii afraad oo qaxootigii weli uu socota muddadaas in ka badan 24,000 oo qof ayaa ka soo degay Puntland dadkaas marka laga reebo 200 iyo xoogaa intooda kale waxay ka soo degeen dekedda Boosaaso 200 waxay ka soo degeen xeebahaas bariga dhammaantood waxaan filayaa inta badan way soo mareen xarunta qaxootiga lagu soo dhaweeyo in badan oo halka fadhido oo qaxootiga hadda muddada ilaa dhowr tobanayada maalmood ilaa 7 maalmood ku jiray xaruntan iyo in badan oo daawanayso saakay jirta gobolada Soomaaliya ama dalal kale oo hadii la kuriyo u gudbay waxaan filayaa xaruntan qaxootiga waxay kala kulmeen aad u xuseen yihiin marka horraacaysiyo xarunta qaxootiga waxay ka mid tahay waa goob ay maamusho wasaaradda arrimaha guduhu leh maamul hawlaheeda si gaar ah uga hawlan xaruntan qaxootiga jiritaankeeda iyo waa goob lagu gargaaro dadka qaxootiga dadka aadka uga qayb qaata waxaa ka mid ah hay-ado samafal oo fara badan oo aan iminka meeshaan joogin hay-adaha iminka caawa jaaniska u helay inay fadhiyaan goobta tan macnaheedu ma ahan in intaasu keliya ay gargaarka ka qayb qaataan kuwa badan oo lafdhabar u ah ama muhiim u ah xarunta tan gargaarka ka socda ayaa caawa xafladda ka maqan laakiin Save Children oo aad garan kartaan oo carruurta ah taasoo ayaduna carruurta ah haddii la kula xafladda tan si gaar ah uga soo qayb qaadatay qabsoomideeda BSA ayadoo aan meelna ka maqnayn oo de kushiinka haddii la kula xarada haysa oo xaruntii iska dhex fadhida malaha saddexdaas hay'adood ayaa jaanis u helay inay ka qayb qaataan waxaan rabaa inaan idin sheego Puntland madaxweynaheeda iyo golaha xukuumaddu wuxuu gudoomiyey in la soo dhaweeyo dadka Soomaalida ah ee dib ugu soo noqonaya dalkoodii ee ka soo qaxaya Yaman waxaan filayaa in qof kasta og yahay in ka badan 1 milyan oo qof ama 1 milyan ku dhawaad oo Soomaali ah ayaa qaxooti inta badan sifo qaxooti ku joogay Yaman dadkaasoo imika diili ku leeyahay soo wada noqonaya number kale oo aan qaxooti ku joogay sifo kale ku joogay waa jiraan oo ayagu dibkooda ugu soo noqonaya dadkaas waa dad Soomaaliyeed dhulkaana waa dhul Soomaaliyeed cid kale ma jirto cid waa dhulkoodii soo dhaweyntooda iyo tabartooda iyo intii Allah ayadoo la arkaya in soo dhaweyntooda iyo taakuleentooda qayb weyn ay dawladda Puntland ka qaadataa waa siyaasad madaxweynaheeda iyo golaha xukuumaddu ay qaateen annaguna saraakiishii farsamada ayada ku shaqeynaa waxa kale oo xaruntan aad uga qayb qaatay xubno bulshada deegaanka culamo odayaal markay aragtay dawladdu baaxadda culayska dadka ka imaanaya Yaman inta ay leegtahay loo baahan yahay in dawlad iyo shacab ahaanba laga qayb qaato dawladdu abaabushay kuwaasoo ifaloweysa aad u fara badan iyo farraysiga uga sameeya xagga mujtamaca Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba maadaama arrinta tan ay tahay arrin Soomaali oo dhan qusaysa ayaguna qayb aan xal lahayn oo aad iyo aad u wanaagsan ayay ka qaataan waxaan ka rabaa inaan idin sheego waxaa ka mid ah dadka ka yimid Yaman dad Yamaniin ah oo qaxooti waxaad ogtiin Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha saxiixay mucaahadada qaxootiga 1951 Geneva Convention loo yaqaano iyo mucaahadada qaxootiga ee dawladaha Afrika ay sida gaarka ugu beegsanayeen arrimaha qaxootiga Soomaaliya 1928 ayay waxay saxiixday mucaahadada qaxootiga mar Puntland hadday ka mid tahay qayb Soomaaliya ka mid ah waxa ayna qabanaya ama shardi ugu ah mucaahado kasta oo qarankii Soomaaliya uu galay raacisiisuna waa qaanuuni sidoo kale dastuurka Puntland waxa uu caddeynaya in Puntland ay diyaar u tahay ama bixinayso soo xaqqa magangeliyada wuxuu sugay xaqqa magangeliyada dadka Yamaniinta oo inoo imaanaya waa qaxooti number barka koobaad waa qaanuuni inaan soo dhaweyno oo la qaabilo waa dastuuri waa qaanuunka haddii la kureeyana faraya
mar labaad waa dad haddii la kuleeyahay jaarkeenna walaalaheenna haddii la kuleeyahay wax badan oo calaaqaad ah iyo xiriir ah iyo islaamnimo iyo ay naga dhaxayso mar labaad intiina halkaa fadhido oo faraha badan oo Soomaalida ah 24 sano ayay dalkooda ku hayeen waxay noogu leeyihiin abaalgud maadaama adinku intaas oo sano ah dalkooda ku sugnaydeen oo ay qaabileen oo xilligii burburkii Soomaaliya iyo dagaaladii ugu xumaa Soomaaliya ay ka socdeen ay joogeen dee maantana ayaga in si gaar ah anno ayagana loo gudo waxay ugu lahaayeen oo xaq ah way leeyihiin ayadoo qaanuun la gudanayo mar labaadna xeerka ay ummadda Soomaaliyeed u galeen in laga abaalmariyo ayaga xaq ahaan bay u leeyihiin annaga Puntlandna waa ku shaqaynaa waa qaabilnaa waa lagu soo dhaweeyaa waxaan jeclahay gabagabadii inaan anoo ku hadlaya ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha inaan 3 shahaado halkan baxsho oo bilo sharaf oo aan guddoonsiiyo maamulka xarunta guddiga culimada iyo hay'adda taas oo marka koobaad hay'adaha task force ka mid ah wakiilna uga dhammaan hay'adaha task force-ka oo barnaamijka kan taakuleynta qaxootiga iyo gargaarkooda ku lug taray hadda waxaan jeclahay intaas sidaan gabagabeeyo oo aan shahaadooyinka baxsho tan kale ciidaha dilay ku leeyahay qaxootiga waa jeclahay waa hadlayaan wixii xerada tan ay kala kulmeen ayadana dilay ku leeyahay ma jirin annagu dad Soomaaliyeed baan nahay dowladda Puntland baan nahay waa ku waajib waxaynu waa inaanu dilay ku leeyahay siyaasadda qaranka ay u qaata aan ku shaqeyno bulsho iyo deegaan aan isu kaashano wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan hadda u yeerayaa Cumar oo ah mas'uulka maamulka xarunta wakiilkiisu iyo ku-xigeenka managerka xarunta ilaa hawshii badnayd ee ay muddadii ay socotay dadkaasu ay staafka iyo shaqaalaha xaruntu u qabteen dadkaas ama khidmadda ay u sameeyeen iyo adeegga u sameeyeen inaan guddoonsiiyo bilada tan isagoo ka wakiil ah staafka xarunta lambar 2 waxaan rabaa inaan u yeero Sheekh Ibraahim oo hay'adda taas oo aad hay'adaha ugu firfircoon oo ugu sareeya oo aadka uga qayb qaatay barnaamijkan taakuleynta si gaarana maanta ciidatan wanaagsan carruurta uga farxisay inaanu adila ku reebiladan guddoonsino asagoo dhammaan hay'adaha humanitarianka ee task force-kana wakiilka ah iyo hawshooda gaarka ah waxaan kaloo u yeerayaa nabadoon Caraale oo ka mid ah guddiga taakuleynta qaxootiga iyo qaxootiga dib ugu soo noqday arrimaha Yemen oo ayaguna hawshii halkan ka qabteen ay sanaayn wax qarsooneen dal iyo dabad iyo qaxooti iyo mujtamac iyo dawladahan dhammaantood la wada og yahay waxaan filayaa inaan idiin sheego dhammaan halkan hay'adaha dawladda Puntland waa hawl ay iska kaashadeen dadka doontu markay soo degto waad aragteen awal dekada 12 saac wixii loo gaaro oo galabnimo doon kuma soo xirjira ama kuma soo xirjira iminka ayadoo loo fiirinayo dadkaas xulayskooda hadday hay'anbar yimaadaan dekadu waa u fili ganacsi kasta oo ka socda iyo baanka ka socda dhan waa la joojiyaa in laga hormariyo barnaamijkaas soo dhaweynta qaxootiga uu ahmiyadda uu leeyahay Puntland waxaad ku garan kartaan Puntland marka ay qaxootigu imaanayaan waxa dekada loo xiraa adeega qaxootiga ganacsiga canshuurihii ka socday dhammaantood waa la xiraa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ayuu u mahadsan yahay agaasime Burhaan Haruse waxaan filayaa inaad wada qiirooteen waxyaabihii uu halkan ku soo bandhigay iyo abaalmarinadii uu bixiyay hagaag barnaamijkan waxaad duubaysaa TV-ga Kalson oo isaguna u dhabar adeegay oo caawa isaguna halkan diyaar uga ah inuu ka qayb qaato barnaamijkan waa hagaag waxaan ku yaranasanaynaa kooxda Somyem waa koox u istaagtay
baraarujinta qaxootiga Yemen ka yimi iyo wax u sheegidda iyo hanuuninta iyo waliba kor u qaadista Somyam waxay mar walba ay soo bandhigi doontaa murti madadaalo iyo majaajilooyin ku salaysan wacyigelinta qaxootiga markan aanu yeero Somyam wallahi shacabka reer Puntland aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen marka wallahi shacabka reer Puntland aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen maxaa la yiraahdaa saaxib suud baa nala geliyay magaaladan suud iska dhaaf wax far badan helay wili garafaata iyo suud iyo laakiin garafaata ka maqan suudka wili garafaata ma siinaan laakiin garafaata ka maqan suudka garafaata maxaa karta caana ma soo hormariyay garafaata gadaal waay saaxib maarak saaxib maarak caanaha nala sii aad iyo aad buu udgoonay caraftiisa ma sha Allah caanaha Soomaali macaana Puntland soo galay ma inay carafteeda aad dareemno wallahi billahi wa ya banay wallahi waana la soo dhaweey meel fiican aan la geey nolol fiican aan la sii cunto fiican aan la sii jiif fiican aan la sii waana ilaalina sidii madaxdii oo kale anu kaabna la waardiyaa wa ya banay wax far badan ay leeyahay يعني مقالة بوتلان وكومات علينا وزارة مدحوينا كله إن شاء الله والله يعني هذا وماسين شعب كرير بوتلان معايلي سي وناكسن ينوسو دويين سيدي مدحدي او كشقيسو ماشا هذا كل واحد جوجو بوتلان aad bay u maasiin iikood garab la siinin oo hay'adta kuleenin oo dadna taa kuleenin shacabka reer Puntland iyo dawladda reer Puntland ayaa waxay garab nagu siiyeen inay naga keenaan oo meel doon anku ka soo degnay oo meel aqoonin Puntland markaa ka soo degani ayaa waxaan la geeyay saaxib meel yani wiligeena arkinbo Mareykan dad jooga amal suud baan la geliyay deegaanna oo ku sii haayeen meelna wadna oo geeyaan insha Allah mustaqbalna oo ku soo baahayeen saasal roo marka saaxib هذا إن شاء الله ماشى سيحنيني أذينا إن شاء الله وهويننا هذا هردا كنا خلينا صاحب مجالنا صبري وجي فينا خيركم waxaan filayaa inaad aad u faraxdeen inta halkan joogtaan farxadda iyo farxad kale baad helaysaan insha Allah markan waxaan u yeerayaa Jaarula oo kamid ah dadka qaxootiga ah ee u dhashay wadanka Yemen ee soo gaaray deegaanada Puntland Jaarula تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقول للشعب الصومالي عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن ولم نجد أي شعب يحتضن اليمنيين أو الصوماليين اللاجئين إلا الشعب الصومالي وإني أشكرهم من داخل صميم قلبي باسم اليمنيين وأشكر الشركات المساهمة في مساعدة الشعب اليمني بالراشن بكل شيء إني أشكر الأمم المتحدة وأشكر شركات التضامن وبعض الشركات أشكرهم من كل صميم قلبي وأقول لهم أن الصومال بلد الثاني وأقول لهم أن شعب طارود هو شعب عربي مثلما اليمن عرب شعب طارود هما شعب عربي من العهد القديم والتاريخ لا ينسى نفسه وإني أقول أن شعب طارود هو شعب عربي قرشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإني من هذا البلد أحببتهم وقد زرت قبيلة طارود في عام 1990 ووجدتهم أنهم شعب طيبين وقلب رحيم ويستقبلون الناس بطيبة وبقلب طيب وقبيلة وأخلاق وإني أقول لهم أشكركم باسم اليمن يا شعب طارود أقول لكم أن شعب طارود قبيلة أصحاب القلب الكبير
أصحاب طارود شعب قبيلة فوق فوق فوق. وأنا من حبي لهم ضميت نفسي إلى هذه القبيلة وأقول أنا طارود ورسنقلي دبيس قبيلة فوق فوق. وإني أقول من هنا من أرض الصومال إني أقول يا أهل اليمن اصبروا وصابروا ورابطوا واعلموا بأن كل ظالم له نهاية، وإننا الآن بين إخواننا الصوماليون. وأقول لكم عيد مبارك يا أهل اليمن. إني منقطع عن أهلي ولكنني الآن بين أهلي الصوماليين ليس غريب، ولكنني ينقصني أن أبوس أرض وطني الذي هو أمي، هو وطني اليمن، وهذا هو وطني الأب. وأني أقول لكم والله إني لا أحب هذا الشعب ولن ينقصني بيني أنا وهم إلا الموت. وأقول يا أهل الصومال، وأقول لكم يا أهل الصومال نشكركم. jaarulaha waad aragteen waxa uu ka hadlay safarkiisii iyo maashaha halkaanba. markana waxaan u yeerayaa Safiya oo iyadana dadka Soomaalida codkooda ku hadlaysa oo dadka Yemen ka yimid. Tafadhal Safiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan ka hadlayaa inaan ka imaaday Yemen aan ku socdo Muqdisho dhinaca koonfurta. alxamdulillaah rabbil caalamiin markaa imaan Puntland waan soo dhaweeyeen sharaf bay noo yeeleen wax kastana waa in dhinaca daawada cadaalad ay noogu maamuleen wallaahi wax oo maanta qabiil ah amba maxaa jirjiryo hoose iyo rafaad waxna la geliyay ma aysan jirto dhinaca maamulka dhinaca jiifkeena dhinaca cuntada caanaheena waxaan weyne ma aysan jirto dharkeena daawadeena raashin ceeriin xataa lagu taakuleeyay lacagtaana la siiyey oo ku saafurayno hadda waxaan iska jeclaystay inaan iska joogo Puntland inkastoo koonfur u dhashay waxaan rabaa inaan Puntland ku haqado oo Puntland iska joogo inuu waxaa maqlay inay wadada ay xun tahay oo gabdhihii la baxsanayo inay magaaladii oo maxay dowladda federaalka ay qaabili weysay ay diideen waxaan jeclaystay dowladda Puntland inay qaabisho oo ayaga aan dhinacooda ku noolaano dhinaceena inkastayna maamulaha oo joogo xerada oo si fiican noo soo dhaweeyay Cumar Baana Caraale Burhaan maxaa la jiray gudoomiyaha kulligood iyo askarta si fiican iyo dhinaca raashinka Cabdixakiin Cabdifataax Cabdiqaadir kulli waana soo dhaweeyeen BFB-da kulli waana soo dhaweeyeen wax dhibaatooyin aan hadda Puntland aan ka tabanayno amba aan ka sheeganayno aan bajirinba si wanaagsan inkastoo Yemen aan ku soo rafaadno oo cunug hoobiyigaaga dhacay oo laaga soo dhintay aan ku soo rafaaday hadda waxaan jeclahay inaan Puntland joogo aan ku noolaado aan ku ceesho inkastaan koonfur u dhashay qabyaalad inta kuma arkin rafaad kuma arkin way soo dhaweeyeen say soo dhaweeyeen haddana inay si wanaagsan jeclahay. Asantay Safiya inta iyo in kale la mid ah waa ay joogaan TV-ga Kalson ayaa weli halkan inoo jooga magaalada Garowe ku jira oo halkan hambaliyada ciidda idin kala qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Cabdullaahi Xaashi Ordeero oo hambaliyo idin soo marsiinaya hawada idin kala qayb qaadanaya barnaamijka isagoo halkan ka salaami doona marti sharafta mas'uuliyiinta hay'adaha iyo shirkadaha halkan fadhiya.
عيد مبارك ما كلنا هاي جود هان مامو كدقمدا مامو كحردا كل وأيكو هذا سلام يان وحنا أي كليهن همبليو هاي أدي سمافلكا مامو كي دولة مامو كحردا يجودي أضياش نبضنا انتوا يولدا dadki yamaninta iyo kuwii Soomaalida ahaa ee halkan uga tagtay ee adduunka badan u haysay iyo hawsha badan intaba waxa ay ku leeyihiin ciid mubaarak nugula ciid هذه أربعة ما شفتها وسير هذه أربعة ما شفتها هذه أربعة ما شفتها حاجات كاسوح وها وزير في وزارة دارمها جودها وزير كعلين في وزارة دارمها جودها الدولة بونتلاند وقد كتلفون كقد قال لي برنامج كان يسقوا كتوغا مقالة الجرون الله عرال كتبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كل عام وأنتم بخير. أنا ku hadlaaya magaca guddiga taakulaynta Puntland guddigana xerada wakiiluga ah waxaan leeyahay halkan dhowr sidii hore loo sheegay dhowr 20 oo qof ayaa soo maray dadkaas guddiga iyo dawladda waxa lagu dadaalay si sahlan inay u gaaraan qof waliba goobihii uu doonayay dadkaas si habsami ah ayaa loo dhoofiyay oo nin waliba meeshuu rabay loo diray halkan xerada nasashada weeye 2 bari 3 bari ka badan laba joogo waa garanaysaan dad 1763 qof ayaa daryeel caafimaad loo fidiyay dadkaas 4 qof waa dhimatay intii kale aad iyo aad bay u caafimaadeen sidaas awgeed dadka tirada leego xerada soo galay caawa xerada waxa ku jira 220 yamaniyiin u badan oo jooga sababo kala duwan awgeed iyo 60 qof oo Soomaaliya dadkaas waxaan leenahay maanta iyo bari iid weeye wixii ka dambeeya waa la safrayaa wixii xamar raba wixii hargeysa raba wixii garoowe raba qof waliba gurigiisa ayaa la gaarsiinayaa sababtoo ah doonyo badan ayaa soo socda waxa la rabaa meesha in loo baneeyo iyo markabkiina waal tiri sidaas awgeed shicibka Puntland iyo xukuumaddu waxay mar walba ku dadaalaan dadkaas inay soo dhaweeyaan lala dhameystiro baahiyoodkooda kala duwan ee gaarka ee shakhsi walba sidaas awgeed waxaan ballan qaadeynaa xaddi kasta oo Yemen ka yimaada inay dalkoodii hooyo yimaadeen oo aanu ku soo dhaweynayno
isla markaasna si hagar la'aana aan u diri doono qof walba gurigiisii loo amba bixin doono qof kasta oo Soomaaliya waxaan leeyahay gurigaagii ayaa ku horan cariishkii aad ku dhalatay ayaa Qaahire iyo Washington ku ahayaan la ilaawin mar uun baa soo qaxi doontaa meel kasta aad joogto aad iyo aad baa u mahadsantihiin maasantiin cali beere adiga laftaada juhdi badan ayaad bixisay waa ku ognahay wax badanna waad u qabatay markana goordhow waxaa inoo soo xirayaa gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka duqa degmada laakiin marka hore aanu yeero nabaddoonbaana oo ah xiriiryaha Yemen nabaddoonbaana tafadal بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير عاول لما كوي كره فرحديده ما دام العيد ولاله قحوتيga Yemen ka yimid khaasatan oo aad aan u dareemayo dibtooda aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo kulanka farxadda xafladda aad baan u soo dhaweynayaa waan ku maasantiin dadkii meesha isku yimid boqolkiiba boqol khaasatan waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo hay'adaha Save Children oo aad u shaqeysa iyo hay'adda taas tadaamun social society gudoomiyaha degmada Dr. Qaasim maamulaha xirada Umar Ismaan Ismaaciil Saciid guddiga nabaddoonnada guddiga culimada shacabka saxaafadda asxaabta kala duwan oo Yemen shacab Yemen shaqiiq aad iyo aad baan idin hambalyeynaya boqolkiiba boqol salaamay insha Allah بريت وساعدنا بوحي مانا سدونتي مركب كي نوال تري أيام هنايا مركب إن شاء الله وحن جعلنا صدق وين قام فرق صدق وين ولا لهن لكن وحى مشكلة دتك قحوتي دبته ودتك مكلف جوي غرس مركب دتك شعب وينها صوماليا صوماليين وحن يعني كعسنا يوم شيء ما إسلوجن قفل مواطن صوماليا إنه $1 ودقة قحوتي يمن لأن قفكي بدلا وحلوقها سيستم اللي سميه 4 مليون إنتاي على قفل $1 أكون كوشوا يعني 4 مليون مركا إن شاء الله وحي كوفر قرينا ساباهي دودن مركا إن شاء الله قفك الصور ربنا أنا قفك الصومالية وحنك عسنا إن شاء الله ذكر ولا إن سدوين contribution كودنا وتلقلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bulshada halkan fadhiso waxaan ka codsanayaa goordhow waxa idin bilaabanayaa heesihii laakiin waxa idin ka codsanayaa inaydan fadhiga ka soo kicin laakiin hadda khudbadaha waxa inoo soo xiraya ku-xigeenka duqa magaalada Boosaaso Cabdiqaasim Cabdiraxmaan tafadal aan ka soo qaybgalayaasha xafladan ballaaran ma caawa munaasabada ciid awgeed waxaan ku salaayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كدب عاو فرحت وين بقيتها يعني كلا سوق يقول مناسبة عيد أوجد وآد يعني أبو فرح سناي مناسبة دام بلارن وقيمة يقايا له واتيك وهذا القيمة عن عرفه مقالة بوساسة اللي هو قطو مناسبة دام وحن رواينا مهاد عليو كوحدة ستار فنانيت دقمة بوساسة وعن كلا رواينا هل كوجو مهاد عليو هايدها samafalka gargaarka weyn u geystay qaxootiga ka yimid dalka Yemen waxaan kaloo rabaa inuu mahad celiyo hay'adaha iyaguna samafalka hay'adaha maxalliga dhamaantood mahad gaar ah ayaan u celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u sheego qaxootiga ka yimid Yemen oo u dhashay dalka Yementa ah oo walaalaheena iyo kuwa Soomaaliyeed oo markii hore u baxay inay dawladda Puntland siyaasadeeda ay tahay inay soo dhaweyso ay xaq u leedahay siina wadi doonto inay soo dhaweyso daryeesho caafimaadkooda quudkooda kulliba way sii wadi doontaa insha Allah ta'ala haddana waa rajaynaynaa kuwa kale inay yimaadaan mar walbana dawladda Puntland waxay ku soo dhaweynaysaa gacmo furan waa walaalahood shacabka muxuu ahay Puntland nabaddoonnada ganacsatada sidii wanaagsaneed ay u soo dhaweeyeen oo u daryeeleen xagga dhaqaalaha soo dhaweynta caafimaadka mar walba heelan ayay u yihiin wayna sii wadi doonaa insha Allah ta'ala xafladatan waxay ahayd mid aad u qurux badan xaafadda ciidda ciid mubaarak mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida dalka waxaa timaadeen dadkiini baa u timaadeen iyo dalkiinni weeye dalkan Soomaaliyeed nimanka Yemanta ah waxaa joogtaan waa dalkiin kuwa kaleetoo Soomaaliyeed soo noqdana waxaan leenahay idinkuna waa dalkiin idinkoo sahlan oo wanaagsan ayaa meel nin walba meeshuu rabo إن شاء الله لقين دونا عاوي حفلتي
saasay inoo ku xiran tahay waana mahadsantii mar labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka xerada iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo si fiican uga qayb qaatay dadkan maamulkooda soo dhawayntooda kulliba aad baan uga mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya Puntland waa hooyadii Soomaaliya Puntland waa hooyadii Soomaaliya noolaato Puntland Soomaaliya noolaato Soomaaliya noolaato Soomaaliya noolaato Soomaaliya noolaato Puntland waa hooyadii Soomaaliya Puntland waa umma Soomaaliya وديجو وتخحوك يا ضيعت لنا يا